halkani waa wadada Xartiimid oo ku taala gobolka Sanaag waana mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan dalka marka loo eego waxyaabaha dalku dibadda u dhoofiyo iyo wax soo saarka gudaha. wadadan waxa ka muuqda burbur baahsan kadib markii la waayay dayactir sidaas darteed dadka deegaanku taa kasta lahaadaanba waxay bilaabeen inay wadada ka shaqeeyaan. roobka yar ee soo helaa waxa weeye inta yar aanu qabanay markaba uu ka qaadaya. اللهم صل على محمد waxa kale waxa weeye ciidanu istaagi mayso haddii wadadu sidan ku sii socoto waxa halis gelaya nafo fara badan oo la badbaadin kari lahaa oo isugu jira dadka laaga ka dhaca dadka habeesada cunto hooyooyinka uur kale iyo dadka xanuunada ku soo boodaan dadkani dhibaato waxay kala kulmaan gaadiid ku iman lahaa oo wadadan ay ku adag tahay.